guriga uu idinku leeyahay waa layga xun yahay ninkani ya uu cowboyga iskaga dhex dhigayo oday baa iskale odayga magaciisa ma taqaanaa okay odayga magaciisa idin sheegaya guriga iskale odayga magaciisa waxaa la dhahaa Peter Haynes waxaa la dhahaa Peter Haynes waa PeterHayNEC nin successful waay oo cadaana waa 86 jir waa 86 sano jira ninka uu gurigiisa sheeganayo nin 86 jira maxaa la dajiyay nin 40 jira arinta kale ee uu soo riixo marka xaaladdu ku xumaato ninkan istaraatijiga kale uu riixdo waxa waay marka xaalka uu jug ku noqdo guri baan leeyahay away ninkii pseudo intellectualka ahaa ninkii odayga ahaa 60 jirka ahaa away ciyaalka isku maleeya baafuusta wuxuu riixay ninkan ranch buu leeyahay guriga ninkan uu hadda degan yahay ay kaade waxa isku dayayaa inaan locationka idin tusinin inta acre uu yahay baan idin isku dayayaa inaan idin tusiyo inta acre uu yahay baan isku dayayaa inaan idin tusiyo okay qiimaha guriga waa kana website-ka ku jira wada aragtaa waa Zillow ma raba inaan wax kale idin tusiyo guriga uu ninkan hadda degan yahay qiimihiisu waa kan 1.7 million waaye okay gurigan goormee la gaday marka okay gurigan wuxuu ku dhisan yahay meeqa acre fiiri meeshan website-kan ku jiro still isla Zillow waaye 7 acre almost 8 acre waaye 7.5 guri acre waaye barnaamijka taageer like iska socdaan share garay barnaamijka okay ada giftaan barnaamijka taageer 7 acre almost guri 8 acre waaye gurigan goormee la gaday video aan sameeyay videoga codka iga xirmay waa idin soo gelinayaa let me show you guys wax barta la idinkuma kara moogtahay maanta dhan waa la iska kiin waabsanayaa aniga waxa la igu haystaa inaan laangaabahay saan waaye waraangaab ma diidanayo ma beenta joojisid waa kana okay sug guriga waa kana meeshan fiiri meesha address-ka muuqanaya inaan docs gareeyo ma rabo meeshan fiiri guriga waa 4 qol ma dhihi karayo guriga waa 4 qol okay iyo 4 musqulood basement buu leeyahay guriga uu degan yahay basementigaasna alaab baa taala partially furnished like iska socdaan oo barnaamijka la taageer partially furnished alaab baa taala basementiga ninka intan buu degan yahay guriga waa 4 qol iyo 4 musqulood isla faane yes gurigan uu idin leeyahay ana iskalo waa ka xun tihiin maadaama idinka la idin haysta inaa lo tihiin goormee la gaday gurigan goormee la gaday meeshan arag price history meeshan si fiican u akhri wali waxaan ku jiraa website-kii Zillow-ga okay Zillow website laga fiiriyo guryaha laguna kala gato 1992 intuu joogay isheg 1992 intuu joogay ninkan sold meeqa lagu gatay 1992 87,500 okay okay intuu joogay ii sheega ma la isku ciyaara wax ma baari karaysaan
You know, sometimes listen, ani dulmiga waa necbahay iyo in fuusto oo been la riixo maanta dhan la misleed gareeyo dadka oo maaragtay iyadoo ajendayaal kale qof ku wato. Guriga uu idinku leeyahay waa layga xun yahay ninkani, ya uu cowboyga iskaga dhex dhigayo. Oday baa iskale, odayga magaciisa ma taqaanaa? Okay, odayga magaciisa idin sheegaya guriga iskale. Odayga magaciisa waxaa la dhahaa Peter Haynes. Waxaa la dhahaa Peter Haynes. Waa PeterHayNEC. nin successful waay oo cadaana. waa 86 jir waay. 86 sano jiraa ninka uu gurigiisa sheeganayo. nin 86 jira maxaa la dejiyay nin 40 jira? Cowboy waa 40 jir waay legally intuu sheegtay waay. waxaad ku qortaa LinkedIn-ka, waxaad ku qortaa Peter Haynes ku qor. waa soo post garana videogayga ku qor Peter Haynes ku qor. Peter Haynes ku qor. nin ciyaal dhalay waaye, awow ah, CEO soo noqday, CEO buu soo noqday, wuxuu soo noqday maxaa la dhahaa director, mar engineer buu ahaa, waxyaaba badan buu soo noqday. Haynes waa HAYNES. Peter Haynes baa la dhahaa ninka uu la degan yahay. reerkii hore soo dhaweeyey naagtii hore iyo ninka isqabay ee reerka soo dhaweeyey. naagta waxaa la dhahaa Sharon McDonald. isagoo English ku hadlaya buu sheegayaa, uu leeyahay Sharon iyo ninkeedu way soo dhaweeyeen, waa ku faraxsanahay soo dhaweyntooda. reerahan ma kala dheera, hal tuulo ay ku wada nool yihiin oo Yarmouth la dhaho. hal tuulo bay ku wada nool yihiin. idinka laakiin maxaa la idiin soo duubayaa? waxaa la idiin soo duubayaa barafkaa la idiin soo duubayaa. nin dhalinyaro maaha ninkani, waa middle age waay Somali cowboy. 40kii buu galay ama 40kii waxbaa u dheer. oday 86 jira maxaa la dejiyey? kow, hadday waxaan wixiisa yihiin 8 eekar oo ku taala baadiyaha Maine ama tuulo Maine ku taala oo lake house. I think inuu lake house yahay mise reerkii hore la deganaa baa lake house haystay, ma garanayo, labada mid waay. oo meel farda ale ya sidaad ku yeelatay dadkay lama waalee meeshaad ku yeelatay noo sheegna tusi cadayntii aaway. guryaha firi tuulo Soomaaliya ku taala. xamar inaan dhaho caasimad soo maaha, inaan dhaho guri baan ku leeyahay oo aan been ka sheego baa ka fudud inaad tuulo Maraykana dhahdid guri baan ku leeyahay. sababtoo ah xilliga guriga la gaday, cidda kaa gaday, bangiga ku finance gareeyey, everything waa public data waay, waa la soo helayaa, been kama sheegi kartid. title-ka guriga, title deed waxaa la dhahaa, saa u taqaanaan superlog baa u taqaanaan, ama guriga warqadda guriga qofka iska leh, odaygan baa iska leh. halka qof ee ku qoran waa Peter Haynes waay. kamis la fahnay. gurigan lacagtiisa waa hadda sida suuqa marka la qiimeeyo lama gadayo, laakiin qiimaha suuqa hadda oo Zillow markaad ka fiirisid waa meeqa? 1.7 1.8 let's say 2 million haddii next year oo kale odaygu rabo inuu iska gado. hadduu rabo inuu iska gado, ya Peter Haynes hadduu rabo iska gado inuu gurigan iska gado, waxaan soo helay warqad xataa ay u qoreen ciyaalka awooga u yahay oo ay ka sheekeynayaan odaygan siduu yahay nin wanaagsan, nin ilmihiisa jecel, waxaasoo dhan. daawade adiguna fikirkaaga nagula wadaag qaybta comment-ka.